No justice, no peace. No justice, no peace. What we need, Justice. no one needed. Justice. What we needed, Justice. what we needed, Justice. what we needed, Justice. what we needed. Justice. Who is the name? Axmed Badal. What was the name? Axmed Badal. No justice, no peace. 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 He's a family man. He's a family man. We need a justice. We need a justice. We need a supporter. We need a supporter. We need a supporter. We need a supporter. No justice, no peace. 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 What we need it now. What we need it. What we need it. Is it tomorrow? bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan u taaganahay walaal wiil walaalkay ah oo da'diiga weynayd waa Axmed Maxamed Badal anigana Bashiir Maxamed Badal baan ahay bishii afraad 12keedii ayaa waxa lagu toogtay jidkan hadda aan taaganahay oo ah 28ka iyo 14ka wuxuu ahaa yar dirawal ah ciyaalkiisa u xamaasha iska shaqaysanaya xilli uu shaqadiisa ku jiro ayaa bartaas lagu toogtay ilaa saac maalinkiis ilaa maanta wax cadaalad oo aan helay ama wax jawaab ah walaamaha amniga aan ka helay ma jirto sababtaas ayaana maanta inaan banaanka soo istaagno nagu kaliftay waxaanan codsanaynaa laamaha ammaanka iyo cid walba ay khusayso oo uu ugu horeeyo maayarka magaaladu inuu arrintan nagala shaqeeyo cadaalada uu ka shaqeeyo cadaaladu waa inay sareyso anagu cadaalad ayaan halkan u imaanay cadaalad ayaan u soo doonanay hadii aanu moodayna in dhibaatadan aanu mudanaynana ma aanan nimaadna marka waxaan codsanaynaa meeshii aan amniga iyo nabadgelyada soo doonanay inaan dhibaato ku mudano aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan codsanayaa laamaha amniga oo mar labaad ku celinaya iyo cid walba oo ay khusayso in ay arrintan naga saacido aad iyo aad baan u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن waxaan u taaganahay cadaalad walaalkay oo lagu dilay jidkan 28ka iyo 14ka April 12 kolka waxaan u baahanahay cadaalad halka waxaan isugu soo baxnay mudaharaad cadaalada kolka waxaan u baahanahay cadaalad walaalkay inaan cadaalad u helo kolka waa mudaharaad nabadaysan sidaas aan kolka ku nimid wasalaam calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim maanta mudaharaadka waxaan nimidnay walaalkeen Axmed Badal oo ugu nimidnay si cadaalad u heli lahaa dhammaan dadka oo dhan wax isku soo baxeen waa saas waxaan u baahanahay dhammaan hay'adaha ay khusayso inay cadaalad helo wiilkaas maanta waxaan isku soo baxnay kulanka ballaaran ee banaanbaxa ah dulmanaha walaalkeen Axmed Badal oo mataqaanay gacan ka xaq daran dishay ilaa haddana la cadeyn cid dishay iyo meel lagu soo hagaago waxaan ka codsanaynaa cid kasta arrinta khusayso oo Soomaaliyeed in arrintan la garab istaago aad u mahadsantiin No justice, no peace. No justice, no peace. assalaamu calaykum halkan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis ku nool walaalkeen Axmed Badal xaggan ayaa lagu dilay bishii afraad ilaa ay hadda wax cadaalada lagama helin booliska iyo markasta nabadgelyada midkoodba wax wara wali lagama hayo cidaas dishay iyo baaritaan midna lama hayo marka waxaan u baahanahay cadaalad inaan u helo Axmed Badal No justice, no peace. No justice, no peace. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجا حق يجان ربنا ويلك يجان لقد دلي إلا يهدنا واحد اللي منه بوليسكم بديلانو هيشتا عدين بانو باهنا حقوق بانو باهنا هاي مالك سدد كيجا دل ويلك كلمة مالك سدد بلدلا مركا حق يجي مرنا أمريكا واني ماني أمريكا حمام باكون ماني دبنا لقوها يا وانا لدلا أولادي بنا لقدلا رجي بنا لقدلا حقوق بانو باهنا مركا ويلك يجي وحي دلي بانو باهنا حقنا لا عديانو باهنا هاي بوليسك هدينا دل حقها نوصا صاران هدي سو صار وين أيجا دلي أيجا كو هاي سناين dileen marka cadeyn baan u baahanaa anaga dilaayira bismillaahi raxmaanir raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u baahanahay wiilkanagii bilaash baa lagu dilay Axmed Badal maadaama oo bilaash lagu dilay
xaqiisii iyo xuquuqdiisii baan u baahannahay inaan helno cid walba oo disha waxaan uga baahannahay xaqiisii iyo xuquuqdiisii inaannu hellaan u baahannahay maanta waxaan isugu soo banaanbaxnay inaan helno xuquuqda walaalka iyo Axmed insha Allah waxaan rajaynayaa in heli doono intaan xuquuqda iyo cadaaladda aan ka helinayna waan mudaharaad doonaa waan daba socon doonaa insha Allah bismillahir rahmaanir rahiim waxaanu maanta cadceedda iyo banaanka u taaganahay inaanu helno cadaaladii walaalka iyo Axmed Badal oo lagu dilay 28ka iyo 14ka Abriil bishii afraad ilaa haddan wax cadaalada oo walaalka iyo helay ma jiro maanta waxaasoo ummadu waxay u taagan tahay inaanu helno cadaaladii walaalka iyo Axmed Badal sida ugu dhaqsiyaha badan laga caawiyaan u baahnaa community-ga Soomaaliyeed iyo walaalaha Soomaaliyeed ee Minnesota degan salaamu calaykum bismillahir rahmaanir rahiim walaalo magacaygu waa Maryama waxaan doonaynaa inaanu cadaalad helno maadaama aanu nahay ummad ku nool community-gaas Mareykanka ku noolaan nahay cadaalad baan u rabnaa walaalo Axmed Badal inaanu helno sida ugu dhaqsiyaha badan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillahir rahmaanir rahiim maanta waxaan halkan isugu nimidnay walaalkay Axmed Badal oo muddo ilaa Ramadaantii ka hor ahayd halkan ay arintii ku dhacday aan ogeyn ayaan maanta halkan isugu nimidnay ilaa iyo waqtigaana booliskii arrimaha ku shaqale waan daba wareegaysanaynay ilaa iyo hadda wax naqanciyo oo si aan ku qanacno noola hadlamaano arkin waxaan ka codsanaynaa dadkii aagan ka dhawaa cidii naga caawin karaysa ee arrimaha wax koog inayna caawiyaan waxa kale oo codsanaynaa cidii kale ee arrimahan u faradhuuban sida qoliyahan maamulka la shaqeeyo dawladda in ay wixii naga caawin karaan naga caawiyaan qof kasta oo arrinta naga caawin karaya waxaan u baahannahay in wixii naga caawin karo oo naga caawiyo waxaan tuunsanahay annagu qoliyahan aan wax weydiinayna booliska baan aad u tuunsanahay ilaa iyo haddana way nala meeraysanayaan marka waxaan bulshada ka codsanaynaa Soomaaliyeed kuwii aagan ka dhawaa iyo kuwa dawladda ee u faradhuuban inay waxyaabahan oo kale ay naga garab qabtaan iyo cid kasta oo na caawin karta inayna garab istaagaan oo wixii ay nala qaban karayaan ay nala qabtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaah bismillahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halkan iskugu soo baxnay walaalka Nuur Axmed cadaaladiisa dad islaam aan nahay waan ku samirsanahay maxay dhimashadiisii geeridu waa mid inoo saaran laakiin walaalkay Nuur Axmed kama samrano xaqiisii ilaa uu cadaalad helo wuxuu aabiciya korsanaya waxaan ka rabnaa dawladda aan la joogno ee la noolnahay inay walaalkay cadaaladiisa meel noogu sheegto waxaan meesha qorraxda iyo qorax kuleelka oo maanta aad u kul waxaan ugu soo baxnay walaalkay sidaan cadaalad ugu heli lahayn waan u samirsanahay xagga Ilaahay geeridu waa xaq waan ku samirnay waa qadar Ilaahay buu ahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin kama samrano cadaaladiisa intaan helayno waan mudaharaadayna waan dhawaaqaynaa qorrax iyo qabow iyo baraf walaalkay intaan cadaaladiisa ka helno ilaa heer maartay nafurud walaalkay waan u huranaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم waxaan u taaganahay halkan yarkii lagu dilay Axmed Badal ee lagu dilay wadada 28ka iyo 14ka oo ilaa hadda cadaalad helin booliiskuna ka gaabinayaan dhammaan xildhibaanada ay ugu horeyso Ilhaan Cumar waxaan ka codsanaynaa arrintan inay soo farageliyaan ka soo qayb qaataan mudaharaadada iyo dadka maaragtay tacadiga lagu dilay ilaa hadda aan lahayn wax lagu dilay lama sheegay muhiimadu cadaalad waxaan baanay Imraan waxaan halkan u taaganahay waa cadaalad baan raadinaa cadaalad inaan helnana halkan hadii habeen baan u taagnaan doonaa bismillahir rahmaanir rahiim waxaan halkan u nimid maanta inaan cadaalad u raadino walaalkeen Axmed Badal oo ahaa magaranayay family man Uber driver oo soo shaqadiisa ku jira oo magaranayay hawl maalmeedkiisa wada la dilay wiilkaas oo ilaa hadda dhowr bilood iyadoo ka soo wareegtay aan wax cadaalad helin marka waxaan leenahay Somali community Minnesota ku dhaqan dadka kale ee ajnabiga marka ay loo mudaharaad wada soo baxdaan walaalkiin soo baxa walaalkiin cadaalad loo raadiyo waxa weeyaan yaan laga hadlin Somali community oo dhan eeg waxa weeyaan inta wadan yarada waxa soo baxday laakiin we need more support iyo more people thank you very much No justice, no peace. 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 What we need it. Justice. No one need it. Justice. When we 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 need it. Justice. Who is the name? Ahmed Badal. What was the name? Ahmed Badal.
man. He's a family man. We need a justice. We need a justice. We need a supporter. We need a supporter. We need a supporter. We need a supporter. No justice, no peace. 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 When we need it now. When we need it. When we need it. Is it tomorrow?